أنا قاعد أنا وير waxaan u weeraro waxay ahayd naf lacagna ka raadimay beesna ka raadimay hungurina ka raadimay inaan laga fakeyn dagaalkana kaligooday wadeen qof la diraysa ma jirin ayuu ka kale qoftay rabaan ay bash ku hay hiiraan iyo xawaadle waxay mudan yihiin amaan yaab gobolka shabeellada dhexe iyo degmada bacd inta u dhaxayso waxaa ku dhimatay isgoos iyo golley meelida 700 igaar oo mudulada ku dhimatay oo ciidana nin xabad ugu dil lama jirno walba qarax lagu dil aniga hadda foor wasiir Hirshabeelle wasiir dawladda magacaab Hirshabeelle daarta imaada leeyahay waa ka dhuntan أنا قصشين ما قصل مجري ولا نفط أنا لو جرت معناه أن ضدك أنت روكسن أو ورنعت سامع نفط أنا إلها إسكال. السلام عليكم برشاد الصوماليات سيدا مقال كاد وجه دامبا حفلة دنيات كوروح البدن كدع عيسى مقالة نيروبي وحاول لجوسه دويني حلبان عثمان حادولة يحلبان فرحية دقنة أو لبضبا الحفلة دي أنتي سعتي لو أمانة واحتركي أو qabadkii muddadii ay ka shaqeynayeen oo ay ka howlgalayeen gudaha dalka qaasatan xildhibaan Ismaan Xaadoole waxa aad loogu amaanay xilligii uu socday howlgalkii lagu soo afjarayay dagaalkii ka dhanka ahaa kooxda gumaadka ummadda Soomaaliyeed ee Al-Shabaab kaalintii uu ku lahaa xildhibaanka xoreynta deegaano fara badan oo ku yaala gudaha dalka Soomaaliya dalka waxaan rabaa inaan ii sheeg xogay warbixinaa aan idinka siiyo waxay ogtiin muddo badan ayaa dalku madaxa lahay majaha iyo lugaha iyo meelo roon waa jira laakiin dalku wuxuu ay madaxana bini'aadamka dawladda yahay madego madaxa waxaan u jeedaa caasimada ayaa dib ka socday iyo gobolada ku hareereysan dawladda la soo doortay 4 sano ay joogtay waa ogtiin to kala la soo doortay dhowr sano idin joogtay ku meel gaar midan kale hadda laba mar oo ku meel gaar waa la soo doortay waa la soo maray laakiin wadada dibka iyo xiriirisa dekada waa dhaaf weysay in inta la soo sawiray idinka la tusiyo ee dalka inuu nabad yahay amal in loo arko magaalada Muqdisho inay nabad tahay dalka la iska dhaafay in maas la soo sawiro وداف وودن كور مركز أنت سنة سومر مدحوينها الجمهورية العصبية هذا يمد مركز للصوت دورتي أرنتان أو محي هذا ودن كنا بتجد الدرجة ودن كوح وبهاي وحك استقني يوكيه ولا حكستو الدنيا ده يقول قني يوكيه ولا هو بهاي أمني أكيد أمني جا ورد أمني جا إبرنا أمني جا قدرات على وساقاتي قندراسة وساقات كوه وحماية هذا الوساقات الدنيا ده دتك مركي مسلمين دت مسلم شجعها وقت الصومالي بقول كيا بقول وما الإسلام وايا وأنا جعلهن مسلم إيه ولا حكوا هلا أنا مسلم عشيق أنا قفت له إزديوت مرة إلا آمن آدي جوده لمن ولاد الشجعي يمدين دتك waxaa ogtihiin dagaal oo loo qof lagu aabeeyay jirin ayay ka wadeen muddo 17 sano ku dhow dadkii waa baabay dadkan waa baabay dagaalkana kaligooday wadeen qof la diraysa ma jirin ayuu ka kale qoftay rabaan ay bash ku hay qoftay rabaan ay dilayeen qoftay rabaan ay deeyeen waxa arkay meel saar aad u socoto nin iskari oo meel iska socda xabad lagu dhifaha dadkiisa oo asuga macnaha xataa reer ahaan hadii la yiraahdo oo ku isku reer yihiin ay asuga isku dad yihiin oo dhinaca gabdhaha shaaq ku gadaayo kuwa inta ku ganacsaay iyo dadka ninkaas meesha ku dhintay yihiin hadaa weydiisan ninkan nimanka hadda xabad lagu dhiftay aaw yaa dilaa tira ma ay ku leeyahay معنى هذا إنه حواي هالكاس شيء جايو هذا شيء وسنو اللي يديره هولي دقنا ما ماشي إيجاد ولا ركاه الجمهور دله أنا شيء جويش
معناه ما أصنف أنت كرهش الدنيا كسي قبض نروح ما أسكرهش هذا قدام بده ولا حال الهري هو مدحوينها قال كانوا حول نمك هلا درو هلا اللي يسدلوا هذا مركز يسدلك يا صلاة أيوة أنا ولا يدلوها يا أيوة ولا حيد يدلوها bulshada Soomaaliyeed oo dhan ayaana qoriyaha qaadatay shacabkii ayaa ku kacay qoriyay qaateen waxayna ka bilaabatay dhinaca heer hiiraan ay ka bilaabatay hiiraan waxa waa xaawataaq horta la ogaatay hiiraan waa xaawataaq ninka raggaana waxa uu qabtay dadka waxay qabtay hadaa la sheegin ee la yiraahdo ee macnaha qofka dawladda siyaad bar waxa jiri jirta la yiri amba dawladaha dhanba ka jiro iskariga amba qofka markay wanaag samayso waa lagu dalacsiyaa marka ay xumaan samaysan waa lagu anqaadaa hiiraan iyo xawaadle waxay mudan yihiin amaan yaab dagaalkay horkaceen waa dagaalameen madaxweynaha oo dawladda federaalka maxay ahayd waa caawiyay laakiin ayaguna waa dhabar adeegeen aad u dhabar adeegeen waana dagaalameen annagana markii dambe garabaan siin aadan ugu xanuun qabna marka dagaalkuna lama rabo in la isku hakro dagaalka waxaa loo baahan yahay cadowga noocaas oo kale markuu gaaro inuu garbaas manu socdo aniga hadda muradalkiis inaan ka hadlo ma rabo qaybtan oo Hirshabeelle gobolka Shabeelle dhexe xildhibaanadii la howlgalay ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka oo iskaashaa anay kamid ah dadka magacooda hadda meesha ku qoraya mudulada yiraahdo dawladda madaxweyne farmaajo uu xukumayo dalka qofta taqaano gobolka Shabeelle dhexe iyo degmada Bacd inta u dhaxayso waxa ku dhimatay isgoos iyo golley meelida 700 igaar oo mudulada ku dhimatay oo ciidana nin xabad ugu dilma jirno walba qarax lagu dil hadda dadka nooga dhinta markaan hadda qiyaas aan sameeyay dagaalka 60 caawa amal u socdaa aniga cali ana weerar waxaan u weeraro waxay ahayd naf lacagna ka raadimay beesna ka raadimay hungurina ka raadimay inaan laga fakayn walaalkay aniga soo korshay oo kaas meesha fadhiyo maxamuuda kufaca ayaa maxay ahaday ay ku dileen 7 bilood ka hor meel buura oo warshaq dugeeda heelka abayno gubeen weligiis intuu uma shaqay sababaha aan u weeraro waxay tahay inaan ninkaas dilay inuusan diinna ku socon dadna ku socon gabdhahana maday rabaan ay ka riixayaan أنا قصشي ما قصل مجري واجد نفط أنا لو قدرت معناه أن ضدك أنتور روكسن أور نحت سامع نفط أنا إلها إسكال لا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون لين مجور قاعدة لكن هذه نقوم وحلو جدا إلى ضد نمط يدلك يديجان ضدك الصوماليين مركب وحيه لين نحن كانوا جالس هذه هنا وحكم هذا مركب الصومال اللي مدين لواي هذاك قبيل وكلا يعين الدولة ده حماشة كبحدي أو بربركي مدين وحيه لين جانس أي كسوق قلم دكتور قيمة وحيلي هذيك حتى وريح هذول هذه هربلات هاي كاسير بالواي محاول كل اللي وصاب دب كاسكينا وسهر بدك كاسوكينا دكتور كل قيمها أيها كل قيمها العاي يكون بحنا يان مدك أيوة موتان عيدا موتان بس أنا موتان حول ما يستل وحي يستل بر فكري وتان أو حاسد فكرك هو حاسد دينة الإسلام كان ما يلقى مسارناه علماء نوع بسوا دور هم تكان وايق إن القرآن علمك إلهي وشيء وايق يعو كل ولي يدله دينة الإسلام كه مركب أصلا قانون علماء ده هذا وضفر ماشى فردوا يقانين أنا قال لكن حواي علمي قال لي قبضي لكن هذا حواي وبوسام موت وحاجوكتي هنا دجاج وقتي هنا أقلية قفت حتى عامي أو قرآن عند علم الأغاني وحيوقتي إسلامكو الرسول صلى الله عليه وسلم لصدري دقوا ودقارها سو توجاي إلهي أو إله هذا اللي يصدر قال ابن ولدي دتك أو إن أدوك يكون جوا لو بشاري أي هاي أنا جنة الجليان رسول صلى الله عليه وسلم دعوا وصو قال أكو يلو وقتي لو من أتعرض لك وأروح كيس ولي جسنا دجاله هو جامع هاي المجهول مركز دمبو مركز سوق الإسلام كوح وجستجي أديك بناك قال لك صحابي يروك بده
wax laga soo maray iyo wixii ay ku falaadeen islaamka noocaas ah rafaadka ogta loo soo maray ee xabad timir ilaa laga dhunjiyo ay ugu dheer la dheey jiray ayay macnaha ay fadulihayaan waa qawaarij marka dagaal ku socdo ilaahayna waxaan ka baryaynaa in looga guuleysto aniga 2 sano aan u qabnaa aniga hadda 2 sano laakiin yaa la dirirayo waay idinka la diririsin idinka waa inaad la diririsin idinkana waa inaad la diririsin waa inaad dhaqaale bixisin waa inaad dalka ku naqatiin waa inaad dadka iyo dalka sida hadda u jeedin kulli wax qurbaha joogan inay kacaan waa in hadda fiiri qaxida laga soo qaxa dalka waxay keentay dawladnimo inay dhalaweyso ay qayb ay keenaysaa sababtoo ah ninka inta ku nooshaa meelna ilmay jiraan meelna intii jiraan wadanka macnaha yaa iskala wadanka carrada yaa wadanka calanka yaa iskala calanka yaa Soomaaliya calanku la taxawra la ilaaliyo dadka hadda aan ku qudbayayna gurigooda oo walaalahayna oo diriska oo Kenyaanka oo idinka aad ku nooshiin aan rabaa halka uu mahad celiyo walaalahayna oo aad u fiican oo Soomaaliya boqol ay ku nooshaa magaalada Nairobi sida dad maxay ahayd aan dad dimin loola dhaqmin oo mahad celiya laakiin waxaan rajaynaynaa insha Allah hadii Ilaahay inta dawladdan teenamkeeda oo meel dhax oo marayo inay kuwa naftigooda oo ajnabiga ay dalka ka ganacsan karaan waxaan rabaa halkaan inaan ka amaano dadka tuutaha gashada ugu horeeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaan isku aagayn oo dhufeys isku jirnay madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaab oo dagaalka qaybsan gudoomiyaasha gobolada sida uu walaalkay barbuusooyahay oo sheegay rag badan oo waxa dagaal ku jiray saraakiisha ciidanka xoogga dalka ugu horeeya taliyaha xoogga iyo ishaag wasiirka gaashaandhigga waa arkaysan maray ka digayeen kulligood rag badan oo naftood horyaal ayaa birta korka u qaybo dagaal ku wada jiro waxa dagaal ku jiro dadka shacabka ahay oo gabdho iyo wiilal leh waxa dagaal ku jiro culimo diinkii waxa dagaal ku jiro dhaqanka waxa dagaal ku jiro guud ahaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan لأنكم وحيكون أوديهم أود يرتاح بدلان سوماليلاند إيمانها كلا الله لكن قبل هذا كوينا وحيستن هير بدلان يعد هرتين إسكا قوتنا أينا أمانينا لما يهو اسمه الحاجة ولا هو رجع مجلس الرجع وحائه نك ركدش رجع محاوي انتينا هذا قرب انتينا أنا باهر أنا قف قام لكن هذا الوحي ترى ملك الجيس حسن شيقوم مديد هذا وحي مركي ودنك أفر سنة كده ولا جد جديا ودنك مركي اللي جد جديا ولا سكده بجد جديا ولا سكولو بوغ نما لقوش باقي عتيس هذا حسن يجي عتيس وجدت أرتجع لجرب ودنك إنه قوم بحيو أنا كنا وحنا جرب أنا جرب استغنى أنا قلنا ولا حنكر هذه أنا جرب استغنى أن قرفيه ثاني تاي أنت تاردين أن مدحوينه يد حكومته رئيس الوزراء وحكومة أمانة وحاركيسين رئيس الوزراء أو حمد السيدي فاركتين شل هذا مالو كذب ما كذبتين هذا مالو كذب وأنا كذب أنا قلت ولا شيء كذي تقال وأرجع حصة أو كل قرد ردالك ربيكته وأكو أمانة أسجل حكومتي مدحوينه وحالة جربا أنا كورت النفط جاني نود عيسين على الربا ومدى الصوماليات كي أسوق إسقرية ودارت ودنك إيه كي أسوق وسير دولة قبلات ودارتي إيه كي أسوق حملان كلا هو مدحوينه أم بقول لك كلا أم بحل لبان هرشبيلة أم بحل لبان فدرال ودارتي هرت كل يوم وضع دارسنا بقول كبس جاش نرت وهذا تطلع وضع دارسين أنا هذا كور وسيلة هرشبيلة وسيلة دولة ليه مقابل هرشبيلة دارت إما ذا اللي نواك دومده waxaan diidayaa waxay ahayd dhaar inaan dhaarno aniga wax ku qaban karo hadda laakiin waa dhaarsanahay marka xalwaan soo qaad walidaadi hortiin waxaan ka balan qaadaa waxaan ku dhaarnay wadankaas iyo dadkaas iyo deegaanada Soomaaliyeedna aan ilaalino wadankeena aan ilaashano dadka iyo aan loo mid kale in wadanku laga shaqeeyo la dhiso oo dhibaato oo wadanka uu gaaro horumar ما أقان ما لي كسرتي عداوات جودها هي اللي ضبطنا ما هرود أنا ما أقان لكن إلهي وحنا لا تتساسا إيمان كان إلهي قريب وطن كان أنا نافعي وطن كان لا نوتس
إذا كان وحالنا نكرر بقى أنا ودنك سيدا هذا تعاون وسود ويسين أو ودنك وحليسين أو ودنك هذا دمع وجليدين أنا ودنك كنا قتين ودنك أنا كنا قتين أنا إذا كان قناته ودنك إن معناها مر ولا مساس ديرد اللو هايو المها ودنك وحائس أنفعها يقربها وخبرتين إيه ودنك on هذا وحبرشيس أي أنت تجعلنا كسرين آد وليدتي ودنك أو اسمه إيه معناها إنه هروق عصده أي هذا معناها دودة هي وحائس أنفعها أقوانتهم أنت تعالوا إيه حاجة حالتك كسرته أو هدي هالمرحلة كعيو وعن سير الرجال بدنا أي وقت marka ilaahay ku dhaartoodi iyo waxoodi been ku dhaarteen haqana aanan ka waramin ilaa ku dadaalay ilaahay naga ma dhigo annaga baarlamankan oo aniga kamid ahay waxaan ilaahay inkiis ku boorina u sheegaya in ay hadda maanta ay tahay aniga wadankan waxa diray sida walaalahay sheegeen walax Soomaaliyeed ka sokay wadanka waa diray waxay ku dirinaan idin sheegan وأنا قف مكرافة كانت تسولف ستة مرتين ودن كان أنا إيه هيرك أن كذا شهدي هل حبهري ودن كان أشقيها وان قدمها وان بابا ننسى ما له داير كميس هل كسوع الله يقف أنا يحس بيه يا هذا بعدين كي أدوم نحن غين أبرتي سوي شو هذا تاسنو حي كانت يقول كان قلنا يا أسكال ودنك أنا حقيقة جري هدي يشق Soomaali aan iga sugay hada wadanka hagaag wadankan hada wax kale wala ku lama taasina inaga wada go'naata horta loo baahay dawladda waa run qabiilkii herima oo professor ka shay qabiil aan jiro dawladda waa lagu qaybsi 4.5 qofna u dareeyo qofna u rooy ana hada qoftaas u dareeyo deema laakiin culays ah marka laakiin madaxda dalka waxaa looga baahan yahay inay cadaalad u sameeyaan dadka Soomaaliyeed kulligood dawladnimada ay ka dhex muuqdaan ayaga midida daabkeeda haaya dadka waxayaan waxa soo hiray qadiyada wadanka in la haashaa wadanka in wadanka dago anagoo kala maanta hadaan way xukuumadda aan bay gacanta taladiisa ka maqan tahay hebel oo kale macnaha inti aniga ana unugumaha ka muuqan أمبان دنا جاره شخصه هدي قوت ماذا شخصه هو ما لكن وحي سهول مري وحال سهول مري وهي مد جاره هني إيه مد على هو أنت لقاقح إذا ده شيء اللي كلا له يصلى بحه ودك اللي سويله ولا حدين مالان أنت اللي قدرت تقولي المال لك يا سيدو عندنا مالان اللي فور شفوك تهدي دور شال على اللي الله تقول صدفه وحس wadanka waxa laga rabaa inay aan horta inaan leenahay aan iska dhaadhicino shilankan keenna asugu ugu noqdo dadka dawladnimada dadka Soomaaliyeed iska leh marka adii lagu aaminana waxa laga rabaa ya sax waa ogtiin marka quraanka uu ka hadlayo meelaha qaar wuxuu leeyahay adduunyo haday leedahay wax faa'iido oo dhilmaayo baalkeedo faa'iido dhilmaayo baalkeedo dad ma wala arkay hadii la qabto أو فإذا أو قيل هذا لا هذا أو نعفي هدويل قال كم مغمرين ما نسيلين مرك ما دام الوصل ذا الدوك فيري حقوق اللي جودين هذا ما دحوينا هذا الخيستا أنت اللي توصلنا له تك الصوماليات وحيك السوق ولا حد حل يقول لك سوق على لوجا بيان مدحوينها حكمك markuu ka tagay hadda ilaahay ku soo celiyo shala marka oo loo dhiibana imtixaan ay ahayd hadda marka laga qaadana hadda imtixaan kale ahayd hadda marka lagu soo celiyo imtixaan kale asaa laga rabaa inuu soo geliyo annagana waxaan naga rabaa mucaarad iyo fatuud iyo walax la roorayay mooshin iyo inta laga soo tuuriyo qashin iyo waxa ka horeeyay horta in horta aan isgarab roogsano loo dhaban adeego iyadoo sida aad rabtay aynu wax ku socon qof walba turaysa dalka iyo dadka warku way ugu badsan raaliga wax badan oo meeyay iga guuxay aniga raaliga naqda heer Nairobi waa maafayn walax kale oo hadda aniga waxaan idin sheegay ragga idin sheegay dalka soo halgamay dagaalkan hadda ku jiro nimanku hadda waa fuudaan alxamdulillah
maalin kasta meela laga qudbay waa maalin kasta waxa la meel hablo laga qudbay gabdhii xatee hadda waxay keeneen ilmihi iyo dadka ay idin sheegay oo lagu hordili jiray gaarta hadda ayuu ka dhaway waqaas waxaan rabaa shacab inaan ugu dambeeytii aan u baaqa shacabka Soomaaliyeed guud ahaan war shacabow hubka dalka lagu difaacay idinka dalka dadka ilaaliya oo cadawga sheega oo maxay ahayd la dirra oo qof hadii daan idinka dilo waxa ku dila cinjo iyo toorey dhagax ku dila inta ciidanka si wadanka amin u noqdo oo ugu wada noolaano shacabka waxaan leeyahay shacabku waxa way hubka ugu culus ee dalka qoryaha yaala maahan ciidankana maahan waxa way shacabka haday ka aan hadda waa maqlaysan wadamada qaar inta la dumin maaga kaareen la soo dhigay markino yaa soo dhigay wadaniina loo baahan yahay wadani inuu dhinta loo baahan yahay maana daatira maana hadaan mushaarka qaadin amba waxa ka qaadin anigu raggi bonder noo ahay oo bonder rag ka dagaalama jirtay ayuu mushaar la'aan naga waxay rag badan oo noocaas oo geesiyaal ayaa joogo qaarkood saraakiishi dagaalka aan isku jiri jirnay xilli dhaxdaan hadaan la sheekaysaday oo baahara ahaa jiran xaniihiyo laga sii baxtay macnaha rinniid xumada ku dhacay waxay ku leeyahay shaar qof ka qawmaysa maana lagu hujaa waxaan qof ka qawmaysa lagu gudrin xaadilu waxaan war fiiri dadka dhamay dismuraal laga dhigay waxaas dadkay diin dadka marka waxa la rabaa in qof kasto ay tiraan iskariga xamar joog iyo hebel xamar jira wax laga sugaa xamar ee dalka waxa wax laga sugaa koow idinku tarayeesha dhaqaale sameeysta wadankana waxa talo rabiyahay waxa ma rabin dawladana garab istaagi rabta dawladda nafteeda garab istaagi rabta dad ayaa hadda jijiif hotel oo dhahaaya macnaha amba team hebel mi amba team amba hebel mi amba team hebel mi waxaasna wadanka xamad u tirimayaan wadanka waa ugu wada aadaa waxyaabaha hadda dekad airportka iyo wasiir gudo iyo wasiir gaashaandhig iyo maxay ahayd meel kale wax dhinka soo baxaan oo qof loo magacaabo waxa ahayn oo badan oo xilala oo fursadaha ayaa banaanaa doona hadii wadanka dego mashaariica ama hayso hadda fiiri guri lama dhisi karo aniga ma soo wacnay marka laakiin inta aniga ka ahayn aniga hadda guri la dhisay wiligeey ma soo wacay amba hadda wax dhisay laakiin waxyaabaha ugu yaabka badnaa waxa kamid ah maalin guri niman kale hada guri mado bus weel xaalad ku dhax injineerka la soo wacay telefoon Mareykan hadii laga soo diray ku soo dhacay ma ku diyaar aween nimanka waxa la marka dadku waa la duleystay waxayna tahay naftigeedu waxa iskeenaa waxa kamid ah hadaan isnacno qabiil isu dilno oo Soomaalinimada dhunto oo walaalnimada dhunto oo ahlnimada dhunto qaraabatu rahimka waxa la waa ummad Soomaaliyeed qaraabatu rahim afartan oday isu jirta Maleemayo qaraabatu rahimka waxa lagu warsaaday maalintii oo qiyaamo waxa ka sameysay waxay u qabatay dadku waa walaalnimada wadanka waa naga dhaxan wadanka aan dhisano Soomaalinimadu hana deeqdo dawladana maxay ahayd hal garab istaago aniga intaas aan ku talaa dawladuna dadkeeda fiiriso dadka dalku hadda wuxuu ku jiraa aniga hadda kama hadlayo gura dalka iyo waxaas laakiin waxaan isleeyahay nimankan hadda wadankooda aan joogno aan jeclahay hadii ilaahay yiraahdo hadaan lagu aabeeyo noocan jabaq loogu hayo ee nimankaas saas loo dabarko ee shacabka qayb ka noqdaan magaalada Muqdisho naday karo waxaan naday karo meelaha saas oo kala shacabka laga rabaa xaafadaha qonton guri ka socod wixii soo galay inay ogaadaan ee dawladdu u gudbiyaan ayaga beerayaan xatee waxaad noocaas oo kala kaasoo kala ma ahna moogtaad yaa ku qabsaa yaa ku qabsaa qof ku qabsaa ma jiro waxaasoo kale waa in la iska qabto midda kale madaxweynuhu waa sheegay walaalmada nimanka adeerkiisna ka taadi ku dilay waa ku shaqoola meesha meelada ugu dhigay dagaalna ma yaqaaniin dagaalkooda gaadmo ee dhawaato way tan kale wadanku uma baahna qabiil iyo hadda in la kala qoqomo iyo in maxay aan dadku qaar ay yiraahdeen sababku waxaan qabiilku ka roon yahay qabiilka ninkii qabiilnimo u istaaga dawladda looga baahan inay ka hortagto idinkan inay ka hortagtina loo baahan wadankan ugu dambeynta waxaan leeyahay shacabkan ha istaago heer Nayrobina aniga waxaan ugu mahad celiyaa kulligeen oo cawada sharaftan xafladan oo la yaabay oo aniga xataa cawada ma ogtahay waxa jiray dagaalada markay jiraan waxa jiro ciidanka
niman heesaa jiraan oo ciidanka dabada ka rogsan dabada ka rogsan macnaha waa dhegeysteen ma leeyahay saas ya howlka madaal wali waa hogadi macnaha heesa ciidanka laga daba heesaya ninkaas muga hadduu fuliya xatay xabadaba garuufa mugta marka meeshaan xafladda noogula sameeyey iyo soo dhaweynta noola sameeyey iyo maxay waxa noola sameeyey waa wax na dhiirigelihayo oo aad gees nooga sii dhigaayo dhammaanna waxaan u mahadceliyaa ragga ciidamada iyo dadka shacabka iyo dowladda dhexe iyo dowladda goboleedyada iyo ummadda Soomaaliyeed kulligeed iyo culumudiin kulli waxa ku jira u istaagay qoladaas qawaariinta in laga saaro wadanka waa dan guud waa u mahadceliyaa gowshaad nagu soo dhaweyseen iyo saad macnaa wadanka ugu xil haysiin waa idinkaga mahadceliyaa waxaan wada leeyahay Soomaalinimo wada shaqayn wacan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.